بسم الله الرحمن الرحيم ومحمود شامع مشرحان حلبانكا مقالة كولومبوس دقمada 25 ee gobolka Ohio waxaan rabaa maanta inaan idin xasuusiyo amba aan idin ogeysiyo in doorashadii la hakiyay March 17keedii maalinkii election day-ga dhici lahayd la hakiyay in dib loo furay doorashadii 27kii bishii March ayaa dib loo furay waxaana lagu codeynayaa qof waraaqo ayaa lagu codeynayaa qof ahaan ama in person ma lagu codeynayo absentee baa lagu codeynayaa waa process laba step ah oo talaabada koowaad ay tahay waraaq aad buuxinaysid oo aad u diraysid board of election-ka oo ku dalbanaysid waraaqdii aad ku codeyn lahayd marka waraaqdii aad ku imaan lahayd aad ku codeyn lahayd waxay ku imaanaysaa 2 ilaa 3 bari inta u dhaxaysa ayadana waad buuxinaysaa markaad buuxisid oo instruction-ka la socdo ayaad raacaysaa waxyaabaha requirement-iga oo dhan iyo information-kaaga aad ku qortid ama boostada ayaad ku celinaysaa ama board of election-ka ayaad ku soo tuuraysaa oo beersan ahaan ku soo drop gareynaysaa application-nada waxa laga qaadan karaa board of election-ka waxay ku jiraan website-ka Franklin County Board of Election waxa muhiim ah saddex taariikhood saddexdaas taariikhood waxay yihiin 25ka bisha April waa maalinka ugu dambaysa ee aad dalban kartid waraaqaha lagu codeeyo 27ka April waa maalinka ugu dambaysa ee aad boostada ku diri kartid waraaqaha lagu codeeyo 28ka April waa maalinka ugu dambaysa ee aad geyn kartid board of election-ka waraaqihii aad ku codeysay doorashaduna ay dhamaanayso 28ka April waa maalinka ay doorashadu dhamaanayso doorashadaana muhiim bay noo tahay waa doorasho taariikhi ah qof Soomaaliya oo la doorto oo laga doorto magaalada Columbus iyo gobolka Ohio ma jiro 120,000 dad cadadkii lagu qiyaasay oo Soomaali ah baa degan ahmiyad bay noo tahay waa mustaqbalka ciyaalka waa mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Columbus iyo nawaaxigeeda iyo gobolka Ohio waa mustaqbalka qofkii ay ku higsan lahaayeen dhalinyaradaasi ay dhihi lahaayeen hebel Maxamuud Jaamac waa la doortay maanta ay ku dhiiran lahaayeen anigana wax kasta noqon karaa madaxweyne noqon karaa governor baa noqon karaa mayor baa noqon karaa dawladda ka mid noqon karaa oo meeshii ay kaga dhiiran lahaayeen dhalinyaradeenu wayaan muhiim bay noo tahay doorashadan waqti badan baan gelinay aad baan looga shaqeeyay in maanta marka waraaqahaas loo kaga adkaado ma ahan codeeya waraaqaha ku codeeya ahmiyad bay noo tahay maanteen bay ahmiyad noo tahay dadka degan Columbus iyo degmada 25aad iyo Ohio ba ahmiyad bay noo tahay inaad codeysaan codkiina waa muhiim marxaladda aan ku jirnaan isbedeli mayso haddii aanan codkeena wax ku bedelin ama aydan codkiina wax ku bedelin hala codeeyo ha lagu codeeyo waraaqaha hala dalbado haddii aad u baahataan in idin ka caawiyo sida loo dalbayo waxaad la xiriirtaan ood wacdaan 614 626 9525 ama 614 316 5 labadaas numberba waxa iskale campaign-ka Maxamuud Jaamac waa laba number oo muhiim ah hadaad wacdaan adeeg aad u baahantihiin oo la idinka caawinayo la soo waca doorashadana laga qayb qaato yaan lala seexanin codkiinu ha noqdo kii lagu guuleyso waxaan rabaa inaan idin tuso foomka lagu codeynaya inta uu leeyahay foomka lagu codeynaya intaas uu leeyahay waxa uu qaadanayaa 2 daqiiqo buqshadaas ayaad ku celinaysaa ama istaamba ayaad ku dhijinaysaa boostada ku ridaysaa amba istaamba ayaad ku ridaysaa boostada ayaad ku ridaysaa amba waxaad ku soo darab gareynaysaa board of election-ka amba waxaad wacaysaa nambaradii aan ku sheegay aan idin yeeriyay 614 626 9525 ama 614 316 5 labadaas number midkood ayaad wacaysaa waana laga caawinayaa in lagu la buuxiyo waana laga caawinayaa in boostada la gaarsiiyo waad mahadsantihiin